kulanti wanaagsan daawadayaal waa markale barnaamijkeeni falanqeynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa ugu weyn madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo sheegay inuu garab taagan yahay dalka iyo dadka Soomaaliya isla markaana waxa uu amar ku bixiyay in taageerada Soomaaliya si dhow loola socdo qalabkii ugu badnaa Turkiga lagu soo subiyay ayaa gaaray dalka Soomaaliya iyadoo dadkii ugu badnaana waxaanu ku soo ridnay magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya guud ahaan wararkii ugu dambeeyay ayaa yahay daawasha qiimaha leh dalkii caalamka islaamka ka tirsanaa ee damintay xubinnimada qaramada midoobay ay ka noqonaysay dal madax bannaan oo isku tagay Imaaraadka Carabta la yiraahdo oo sheegay hata inay khaati ka taagan yihiin faragelintiisa iyo dhibaatada uu ku hayo Imaaraadka oo laf dhuun gashay ku noqday dalal badan oo caalamka islaamka kamid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo marxabeeyay soo dhaweeyay aragtida Kim Jong Un isagoo markii ugu horeysay noqday madaxweynihii ugu horeeyay Mareykanka ee la wadaaga dadkiisa hadal ay soo saartay wakaalada wararka dalka Kuuriyada Waqooyi dalka Falastiin ayaa iyaguna waxa ay markii ugu horeysay gul ka gaadheen maxkamadii ay ku hayeen Yuhuudda iyadoo maxkamadda dambiyada dagaalku ay ku dhawaaqday in ay u garqaadi karto Israa'iil iyo Falastiin Trump iyo Netanyahu waxa ay isku diideen waxay hore isugu raaceen heshiiskii ay labadooda wada amaamuteen ee qarniga loo yaqaanay ay isku mari laayihiin iyadoo Trumpna uu hanjabaad u diray Netanyahu qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan daawadayaasha qiimaha leh waa 3 bishii May 2020 waa maalmo axad ah oo wararkii ugu dambeeyay ee wararka caalamka dunida iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda aan ku bilaabo isla markaan ugu horeeyay nin kamid ah dadka soo saara aflaanta yaryar ama jilayaasha yaryar oo loo xiray kadib markii la sheegay in uu dacaydeeyay ama canjalay madaxweynaha dalkaasi Masar Abdel Fattah al-Sisi ayaa jeelka ku dhex dhintay ninkan oo 24 jir dhalinyaro ah Shadi al-Habash ayaa waxa uu ahaa mid ku xiran jeelka ama xabsiga weyn ee leedahay Tora sida uu sheegay qareenkiisa Ahmed al-Khawaji al-Khawaji ayaa waxa uu sheegay in ninka dhalinyarada ah uu la daaladhacay xanuuno kadibna isbitaal la geeyay laakiin isaga oo aan loo dhameynin daweyntiisa dib loogu celiyay jeelka halkaas uu ku qurbaxay waxaana la aaminsan yahay ninkan uu xidhnaa labadii sanadood ee ugu dambeeyay kadib markii bishii Maars 2018 ay dawladda dalkaasi ay xidhay iyagoo ku eedeeyay inuu warar beena uu faafinayo waxa la aaminsan yahay in sidoo kale lagu eedeeyay inuu leeyahay urur ay ku tilmaameen inuu yahay sharci darro si kastaba ha noqotee ninkan ayaa waxa uu ahaa ninkii soo saaray heestii uu dhulka kula simay madaxweynaha dalkaasi heesaaga caanka ee Rami Izam la yiraahdo ee dalka Sweden isagu baxsaday heestaas oo caan ku ahayd baalaha ayaa waxa ay qabsatay baraha bulshada iyadoo malaayiin qof ay ka daawadeen barta YouTube taasoo ka dhigtay madaxweynaha baa la yiri mid ku riday hurdawaagi ugu darnaa abid haatan waxa la sheegay in ninkan dhalinyarada ah oo asagu ahaa ninkii isku soo dibiriday heesta iyo qoraalkeeda la sheegay in loo xiray loona dilay sidaas dad badan ayaa waxa la sheegay in jeelasha dalkaasi ay ku dhimanayaan isla markaana ay sida joogto ah ay u noqonayaan kuwa ku dhimanaya kadib markii lagu silaa dilay halka nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay warbixinada dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan daawadayaal qodobo warbixino weyn baa noo soo socday ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si toos ah uga hadlay xaaladda Soomaaliya marka ay timaado arrimaha dhibaatooyinka halkaas ka taagan dhinaca caawimaadda iyo waxa Turkigu u ka doonaya arrintaas waxaana uu ku tilmaamay in dadka Turkida ay walaal iyo arxan baleeyihiin ayuu yiri dadka Soomaalida wuxuu yiri walaalaha Soomaalida waxa ay yihiin ayuu yiri kuwa u baahan taageeradeena ayaga oo soo maray waqti adag wuxuuna sheegay in ilbaxnimada walaaltinimada iyo islaamnimaduba intaba ay faraso inay Soomaalida caawiyaan oo ay ka caawiyaan ayuu yiri dhinac walba bartiisa Twitterka iyo Erdogan sidoo kale wuxuu ku soo qoray in dawladdiisu ay ogtahay oo markaasi iyadoo si miyir qabtay uu eegtay ama ay u weelaysay taageero kasta ay siinayso Soomaaliya wuxuu yiri Soomaaliya waa garab taagnaa doona waxaana noqon doona kuwa ka caawiya inay ka soo kabtaan dhibaatadii xoog lahayd ee dalkaas iyo dadkaasi gaadhay muddadii ugu dambeysay Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in mashiinada iyo qalabkii ugu dambeeyay ee casri ah ee dalka Turkiga soo saaro loo diray halkaasi mashiinada loo diray ayaa la sheegay inay kuwa neefta dadka ka saaciday funnelers loo yaqaan afka qalaad ee neef saacidayaasha iyo kuwa kale ee lagu xiro dadka marka la gudbiyo qofka ama la geeyo qaybta xaaladda degdega ah ee ICU-ga loo yaqaan 5,000 oo mashiin oo la sheegay inay yihiin mashiinadii haatan lagu soo habeeyay dalkaasi ama lagu soo suubiyay loo gudbiyay dalka Soomaaliya ma la gaarsiiyay sidoo kale waxa loo gudbiyay qalabka PPE-ga loo yaqaan ee dadka howlgalka caafimaadka wada ay isku badbaadiyaan ama ay isku daafacaan wasiirada wasaaradaha gaashaandhigga warshadaha iyo tiknoolajiyadda caafimaadka iyo wasaaradaha kale arrimaha khuseeya iyo waaxda airportada ayaa isku dubariday ayaa la yiri qalabkaasi waxaana la sheegay in qalabkan haatan ay ku farayareysteen shirkadaha waaweyn ee dalkaasi dhinaca tiknoolajiyadda iyo qalabka culus u qaabilsan sida shirkadda la yiraahdo Piosis Baker Aselsan iyo shirkadda kale leeyahay Isric madaxweyne Recep Tayyip Erdogan wuxuu sheegay in qalabka kale ee Soomaaliya loo diray ay ku jiraan ayuu yiri kuwa afka lagu jeebto kuwa lagu baaro xanuunka markiiba lagu ogaa karo ay sahli karaya wuxuuna sheegay in aysan tan ahayn mid
ay intaas ku dhamaatay marka ay timaado arrinta taageerada Soomaalida la siinayo. Waxa la arkayay qalabka oo lagu diyaarinayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Ankara ee caasimadda dalkaasi saldhigga militariga laga dirayo diyaarad military loo diyaarinayo waa saldhigga militariga la yiraahdo Itizmiskut military airport ee ku yaala duleedka magaalada Ankara ayaa waxaa lagu xardhay calanka Soomaaliya iyo calanka Turkiga iyadoo lagu qoray halkudhigi gabyaagii wadaadkii Suufiga ahaa ee dalkaasi caanka ka ahaa Muflan Rumi kaasoo ahaa culays kasta iyo saxariir kasta waxa ka dameeya subaxyo wanaagsan oo qorrax nabad qabta ay soo baxdo lagana baxo markaasi madowga iyo durrada waxaana la sheegay in ay taasi tahay gabyaaga ay dalkaasi qoreen ama ka qoreen taariikhyahanadiisu qarnigii 13aad dhanka kalena iyadoo erdaas ay jirto ayaa xaaladda dadka iska soo daba dhacaya ama sida tarab soo daadanaya ay soo badanayaan wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya Marwo Fosiya Abikar Noor ayaa si joogto ah uga warbixisa iyadoo maalintii alla keenaba ka warrantay iyadoo dhaqaatiirta la hawlgalaysa xaaladda dalka uu marayo Fosiya waxa ay sheegtay in dadka haatan xanuunka u soo dhacay saacadihii ugu dambeeyay 70 qofood gaaraya ayadoo sheegtay in 3 kamid ah dadkaasi ay ka soo daateen ama laga soo sheegayo ayay tiri Puntland iyo Somaliland waxayna tiri 67 kale waa gobolka Banaadir magaalada xarunta Muqdisho iyo gaarkeeda 67 ruux ayay sheegtay in ay la diiwaan galiyay warar kale ayaa sheegaya in dadka xanuunka u dhimanaya ay aad u badan yihiin marka laga reebo balaleeyahay dadka dawladdu ay diiwaan galinaysan ay ka badan yihiin dadkiisa diiwaan galin dad badan ayaa la arkayo xabaalaha dad si wadana u aasay sida dad kala duwan oo xaafadaha kala duwan magaalada Muqdisho ku nool ay warfar media la soo wadaageen dad badan ayaa sheegay inay garanayaan dad dariskooda oo xanuunadaas u dhintay iyo kuwa kale oo xanuunka la ildaran ayagoo sheegay in dadkaas aysan tagin goobo cisbitaal ama aysan ka warhaynin wasaaradda caafimaadka dalka maadaama aysan iyagu goobtii tagin haatan waxay sheegtay in ku dhawaad 700 oo qof ay xanuunka la dala dhacayaan 34 ruux ayaa dawladda u diiwaan gashan ayay tiri Miss Fosiya oo sheegtay in ay ogtahay in 31 ruuxna ay dhinteen 34 xanuunka ka soo raysadeen waxay sidoo kale sheegtay in ay dawlad goboleedyada ka caawinayaan bay qalabkana wax ka siinayaan iyadoo sheegtay in ay qalab badan u diyaariyeen oo ay dawlad goboleedyada iskaga caabiyaan xanuunka faafaya dadka Soomaaliyeed ayaa wali loogu baaqaya inay kala fogaadaan inta badan dalka Mareykanka iyo goboladiisa ayaa dib loo dhigay dib u furistii markii la sheegay in walaaca uu soo kordhay gobollo badan ayaa dib uga gabangaabsaday iyadoo gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo uu ka digay talaabo degdeg uu ku tilmaamay oo si degdeg ah loogu furo ayuu yiri gobolada inay keeni karto hoobasho xooggan Mareykanka iyo Shiinaha ayaa iyaguna hadallo kulkul isdhaafsanaya madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku adkaysanaya in Shiina uu ka dambeeyo xanuunka la soo amaamuday waxaana la sheegaya waxaana hadaladii ugu dambeeyay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka uu tusaalaha u soo qaatay oo kamid ahaa in ninkii qayla dhaamiyaha ahaa ama ka soo qayla dhaamiyay ama ka qayla keenay qayla doonka ahaa xanuunka ee dhakhtarka ahaa la xiray oo markaasi la dhibaateeyay kaasoo aakhirkiina xanuunka u dhintay ama laga yaabo in la dilay dawladda dalka Shiinaha ayaa ku tilmaantay in dagaal dhanka saxaafadda iyo sharafta ah uu madaxweynaha Mareykanka ku soo qaaday dalkooda iyadoo saxaafadda dalkaasi Shiina ay si toos u hayso madaxweynaha dalka Mareykanka iyo dawladooduba dawladda Shiinaha waxa ay sheegtay in xanuunkan aan la siyaasadeyn isla markaana xanuunkan uu yahay xanuun safmar ah oo adduunka oo dhan ku soo baxay isla markaana haatan gaaray ay yiraahdeen adduunka oo dhan faafaha daran ayaa u muuqda haatan mid faraha laga qaaday halkaan kala socotaan daawadayaal wararkii waxaa dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo warbixino waaweyn ayaa idin haya daawashana qiimaha leh oo kala duwan ee dalka Belgiumna ururadiisa aan dawliga ahayn oo dhan waxa ay soo saareen iyaguna warqad kale iyadoo oo shalay oo aad maqlayseen in siyaasiyiintii ugu badnaa ee ka tirsan aqalada kala duwan ee dalkaasi Britain iyo siyaasiyiin hore wasiiro iyo rag kale oo culus ay Boris Johnson ka dalbadeen in cunaqabatayn la saaro Israa'iil lana joojiyo cilaaqaadka la leeyahay ayaa haatan waxa soo badanaya dalalka reer Yurub arrinta ka gilgilinaya ama ku soo biiraya oo tamanaan ururo NGO ayaa war qoraal ah oo warqad ay u direen dawladda dalkaasi Belgium wasiirkeeda arrimaha dibadda iyo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha labadaba waxa lagu yiri in ay doonayaan sida ugu dhaqsaha badan talaabo iyo cadaadis loo saaro Yuhuud oo iyagu cunaqabateynaya dad awalba dhibaato xooggan ay soo gaadhay haatan ugu darsaday xanuunka faafaha daran ama faafida xooggan ku haya adduunka sida ay qorayso wakaalada wararka ee dadka reer Falastiin u hadasha ee la yiraahdo Quds News Agency waxa la yiri warqadan oo ay saxiixeen dad culus waxa loo diray wasiirka arrimaha dibadda dalka Belgium Philippe Gobin iyo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha dalkaasi Belgium Alexander De Croo waa dalka Belgium waxaana lagu yiri sidoo kale waxaa nuqul la siiyay ama copy la siiyay baa la yiri ninka u qaabilsan midowga Yurub arrimaha dibadda iyo amniga Joseph Borrell
waxaana lagu yiri sida muuqata riixitaanka dhibaataynta cadaadiska xooggan tacadiga dadka reer Falastiin waxa uu yahay mid aadanahu ay markhaati ka wada yihiin intooda nool waxaana laga dalbaday in sida ugu rasaha badan ee dowladda Belgium ay u farageliso qadiyad uguna baaqdo Israa'iil inay horta sii deyso lacagta cashuurta ay ka xayn daabatay ama ay ka ceeshiimaysatay maamulka ay ku hareeraysan tahay Falastiin si wax looga qabto xanuunka faafaya waxaa sidoo kale lagu yiri waa in loo dabcaa dadka reer Falastiin waqtigan adag lagana caawimaa ayaa la qalabka ay u baahan yihiin inay ka hortagaan xanuunka waxa hay'aduhu ay sidoo kale dalbadeen in iyadoo xuquuqda insaanka la eegayo in wax laga qabto talaabooyinka cadaadiska leh ee bahdilka ah ee Israa'iil ay sii wado ururka la yiraahdo The Belgium Palestinian Friendship Association ayaa iyaguna warqad ay u direen Musgafin waa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Belgium waxay ku dalbadeen in sida ugu rasaha badan ay u saaraan cunaqabateyno xoogan Israa'iil looguna baaqo in ay ka qaado cunaqabateynta cirka dhulka iyo badda ah marinka Gaza ee hareeraysan arrinta waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dalalka reer Yurub ay cadaadiska ugu badan kala kulmayaan dadka xuquuq insaanka u dhaqdhaqaaqa iyo dadka qaarkood xildhibaanada yihiin kuwaas oo ku baraarugsan xaaladda iyo dhibaatada ay yeelatay go'doomintu kadib markii adduunku go'doonka ayaan macno badan dadka ugu fadhiyin ka hor inta xanuunkan uusan iman waana cadaaladda eeba ayaa laga yaabaa in marka qofku go'doomo meel lagu bixi waayo uu ogaado culayska ay leedahay wax badan ay ka baaqdaan safarro meel badan ay tagaysay iyo waxyaalo badan halkaad nagala socotaan waa wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan daawadayaal gaankeegan dunida oo dhan daawadayaasha qiimaha leh qodobo waaweyn iyo warbixino kala duwan ayaa inoo soo socda daawadayaasha qiimaha leh qaybta labaad ee wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda